hay-adda ARC oo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxoontiga UNHCR ayaa waxa ay kaalmo isugu jira maacuun iyo hu ay gaarsiisay 110 qoys oo ah dadka danyarta ah ee ay saameeyeen roobabkii ugu dambeeyay ee ka da'ay deegaanada xeebaha gobolka Sanaag gaar ahaan Caasha Cadde iyo Geedhaad oo ka tirsan degmada Saylac. ugu horreyn baa waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Ismaaciil oo ku hadlay hay-adda ARC ee iyadu kaalmada gaarsiisay dadkaasi isu duwaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Cismaan Cali Maydhane Liban Ibrahim Sheekh Maxamuud oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland madaxa tuulada Caasha Cadde Maxamed balalo iyo waliba mid kamid ah dadkii la gaarsiiyay deeqdaasi waxaan halka soo gaarsiinay maanta caawinimo 60 qoys oo dadkii daadadku ka qaadeen guryahooda annaga oo hadda toddobaad ka hor nimid soo gaarnay sidii aan uga heli lahayn xog iyo dhibaato sida u dhacday waxa kale oo jira 50 qoys oo kale oo aan ka bixinano meesha la yiraahdo Geedhaad isku 110 ka qoys baan soo gaarsiinay bulshadan daadadku saameeyeen waad dareemaysaa waad aragtaa in daad halkan soo maray guryihii ka qaaday waxa ugu badan ay u baahan yihiin ay tahay sidii gurigooda loogu soo celin lahaa loo keeno bustihii jarekaankii saabuuntii cawdii bacdi guriga la saaranayay intaaba loo keeno waxa halkan sidoo kale aan mahadnaq uga dirayaa oo xusaya hay'adda arrimaha qaxootiyada u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR oo iyadna gacan ballaaran ka geysatay gaarsiinta agabkaasi in la soo gaarsiyo dadka tabaalaysan maanta waxay farxada dhibaatadii ka dhacday gobolka Sanaag ee daadadkii iyo abaarihii hay'addii u horeysay ee ka soo jawaabta baahidii halka ka dhacday ARC sida daradeed dadkan waxaan ku boorinayaa inay halgan nololeed galaan inaan la sugin wada waxa la keenayay halgan nololeed la galo hay'adda la yiraahdo ARC la yiraahdo ayaa maanta halkan qaybisay macaawino bustayaal iyo baacayaal isku jirta hay'adaha kale ee waddanka ka shaqeeyana dilaa wax gaarsiiyay dadka waxaan leeyahay iyaguna ku daydaan ma leeyahay gargaara oo soo gaarayna waxaan haynaa hay'adda ARC inta ayna soo gaarsiiyeen waan ka mahadnaqaynaa maanta waa ka maanta si fiican baan loo gaarsiiyay 60kii inta ay ka badanna hay'adaha caalamiga iyo dawladda Soomaaliland waan ka sugaynaa waa loo baahnaa inta imaka loo keenay in afar laabkeeda amba shan laabkeedana waa loo baahan yahay maanta waxa nala joogta hay'adda ARC iyo maalin loo baahnaa caawimadayna soo gaarsiisay waa anaga dhex fadhina ilaahay mahadi waan u mahadnaqaynaa Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV